BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da waa duhur Axada 17 Maarso saacaduna waa 2 duhurnimo oo gow ah. qodobada idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Facebook iyo baraha kale ee bulshadu ay ku wada xiriirto oo lagu eedeeyay inay si ugu lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday masaajidda ku yaala dalka New Zealand. Soomaalida degan Minnesota waxay ka arrinsanayaan sidii looga hortagi lahaa weerarada islaam nacaybka ku salaysan. waxaa kale oo maqli doontaan taata iyo shalay ilaa militariga ayaa la dispatch gareeyay oo dadka caawiya ilaa haddana roobka waa socdaa. magaalo Harare la yiraahdo oo caasimada ah soo gaaray roobka muddo 3 maalmood buu socday. waa xaaladihii ugu dambeeyay duufaanta ku dhufatay dalka Zimbabwe. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan duhurnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebba idmo. bas marka hore dhegeystayaal barnaamijku waxaynu ku bilaabeynaa warka caalamka ee BBC-da. waa kan Axmed Mursal. mahadsanid Kawthar. Ra'iisul Wasaaraha New Zealand ayaa sheegaysa in shirkadda Facebook looga fadhiyo su'aalo ay tahay in laga jawaabo kadib markii nin hubaysan uu muuqaal toos ah ku baahiyay bartiisa Facebook asagoo leynaya dad muslimiin ah oo ku tukanayay masaajid ku yaal magaalada Christchurch. boggan ay bulshadu ku wada xiriirto ayaa sheegaya in uu tirtiray 1 milyan iyo bar muuqaal ah oo la xiriira toogashadaas. afayeenka golaha haweenka muslimiinta ah ee New Zealand Arjum Rahman ayaa sheegtay in muddo dheer ay dawladda kala hadlayeen dhibaatooyinka uu leeyahay midabta koorku. uma arko in weerarku ahaa mid gabi ahaanba kadis ahaa. sanado badan ayaan dawladdu weydiisanaynay taageero, in cabashooyinkeena la maqlo iyo in laga hadlo saamaynta uu yeelan karo midab kala sooca iyo faquuqa intaba. waxaan horey uga hadalnay dareenka aan ka qabno qolyaha xag jirka ah ee midabta fog. waxaana wax iska weydiinay fiirada loo leeyahay kooxaha caynkaas. waxaan dareemayaa in dawladdu ay ka gaabisay jawaabtii loo baahnaa. goobaha laga dhiibto codka ee Thailand ayaa la diyaariyay iyadoo muddo 7 ah ay ka harsan tahay maalinta rasmiga ah ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa. waa doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacaysa tan iyo markii militarigu uu la wareegay talada dalkaas 5 sano ka hor. ciidamada ayaa gacan adag ku haya hanaanka doorashada ee dalkaasi ka dhacaysa. shaqaalaha samata bixinta ee ku sugan gobolka Indonesia ku yaal ee Papua ayaa dadaal dheer ugu jira sidii ay ugu tagi lahaayeen aan idhaahdee goobo ka mid ah meelo ay waxyeeleeyeen daadad iyo roobab mahigaan ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof. inka waaweyn ee gobolkaas isku xira ayaa goobo iyo geedo soo dhacay. ciidamada Israa'iil ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay 2 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday daanta galbeed. afayeenka ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in qof Falastiini ah uu mindi ku weeraray askari Israa'iili ah asagoo ka qaatay buntuqii uu sitay, wuxuuna toogasho ku dilay 2 qof oo kale. ugu yaraan 3 qof bambaano oo lagu qaaday tareen kuwa dheereeya ah oo marayay galbeedka dalka. tareenka ayaa markii uu weerarku dhacayay ku sii jeeday magaalo madaxda gobolka Balochistan ee Quwayta oo u dhow Nasrabad. mana cadda ilaa iyo hadda cidda weerarkaasi qaaday. ugu dambeyntiina booliiska Nicaragua ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxyo ay mucaarad ku dhigayeen oo ka dhacayay caasimadda dalkaas ee Managua. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in la sii daayo dadka siyaasadda u xiran. warkii caalamkuna waa naga intaas. Kawthar mursalaad bad u mahadsan tahay. imikana dhegeystayaal u diyaar ee barnaamijka. aynu ku bilaabnay Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in Facebook iyo baraha kale ee bulshadu ay ku wada xiriirto loo baahan yahay in su'aalo laga weydiiyo tabinta tooska ah uu sameeyay ninkii dadka badan ku laayay masaajidda ku yaal magaalada Christchurch ee dalkaasi. 50 qof ayaa ku dhintay weeraradaasi lagu qaaday 2 masaajid. Ra'iisul Wasaaraha ayaa intaa ku dartay in Facebook oo la soo xiriiray uu qirtay waxa dhacay. faahfaahinta warkaasina waxay noo hayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow.
shirkadda Facebook ayaa sheegtay in muddo 24 saac gudahood ay hawada ka saartay in ka badan milyan iyo bar muuqaal oo ku saabsan weeraradii muslimiinta lagu laayay ee ka dhacay magaalada Christchurch. Waxay sheegtay in inta badan muuqaaladaasi ay xayirtay xilli dadka isticmaala Facebook ay isku dayayeen in ay dejistaan weerarada ka dhacay Christchurch ayaa ninka fuliyay waxa uu si toos ah u tabinayay falkaasi gurracan. Ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo warbaahinta la hadashay ayaa su'aal ka keentay sababta baraha bulshada ay u joojin waayeen tabinta tooska ah ee ninka weerarka fuliyay. Waxay sheegtay in Facebook looga baahan yahay inuu ka jawaabo su'aashaasi. Well, certainly, as you know, we did as much as we could to remove. Sida aad ogtihiinba waxaan sameynay wax kasta oo karaankeenna ahaa si aan u tirtirno qaar ka mid ah muuqaalada la baahiyay kadib weerarkii argagixiso. balse go'aanka ugu dambeeyay ee muuqaaladaasi laga masaxayay waxaa lahaa baraha bulshada ee ay ku jireen. waxaase rumaysanahay in loo baahan yahay in barahaasi su'aalo dheeraad ah laga weydiiyo waxa dhacay. baraha ay bulshadu ku wada xiriirto ayaa ah kuwa ugu awooda badan ee meelo fogfog wax gaarsiiya. taasina waa dhibaato ka jirta New Zealand iyo weliba qaybaha kale ee caalamka. Has played out in other parts of the world. dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijisay in xafiiskeeda uu soo gaaray dukumeenti uu soo diray ninka la tuhunsan yahay in uu weerarka fuliyay 9 daqiiqo ka hor inta aanu falka geysan. waxay intaa ku dartay in dukumentigii aanu sheegin halka uu weerarka ka dhici doono balse ay u gudbisay laamaha ammaanka 2 daqiiqo gudahood. Cabdiraxmaan Xaaji Cabdow waa mahadsan yahay isla wararka weerarkaasi inuu ku guda jirnaaye magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka waxaa ka dhacay masaajidka ee Darul Faruq kaasoo loogu barordiiqay dadkii jimcihii lagu laayay masaajidda ku yaal dalka New Zealand isla markaana looga wada hadlay sidii looga hortagi lahaa weerarada noocaas oo kale ah. Cabdullaahi Cabdulqaadir Faarax oo ka mid ah guddiga masaajiddaasi oo hadda ka hor weerar lagu qaaday ayaanu ka wareysanay waxyaabaha kulankaasi looga hadlayay qadka telefoonka ayuuna ugu waramay Faalmo Macalin Abukar. maanta kulanka aan wuxuu ku saabsanaa waxay ahayd tacsi aan u direyno dadkii walaalaheen muslimiinta ahaa lagu baabiyey annagoo tiiraanyo iyo xanuun badan arrinkaas nagu keenay inaan wax ka qabano iyo inaan dadka tusno waxaan waxa keenay muslim naceeb ama islaam naceeb naceebkaasne uu ma arkino maxaa la dhahaa wadooyin badan ku imaado. marka naceebkaas ku imaado waa ma arkino maxaa la dhahaa information khaldan oo adiga lagaa bixiyo sida ma arkino news media dalkan iyo dalalka ma arkino maxaa la dhahaa qurbaha ay dadka u sheegayaan dadka muslimiinta inay yihiin dad qariib ah oo meelo kale ka imaaday oo wax aaminsan inay wadankan kusoo duuleen ama waayaan. marka runtii taasoo kale annagana wayna haysataa dhibkaasoo kale oo sanadkii hore masaajidkeena Daar Faaruq ayaa sidaas oo kale loo qarxiyeyna markii la qabtay waxay dhaheen waxaan rabnaa in muslimiinta fariin u dirno in ay wadankan ka baxaan maarkino inaan cabsina ku abuurno. marka run ahaantii arrinkan markii aan soo gaartay muslimiinta dhibkan la soo gaarsiiyey annaga waxayna soo xasuusisay dhibaatadii aan marnay inta Minnesota markii nala qarxiyey. marka Cabdullaahi maxaa tallaabooyin ah oo aad isla meel dhigteen si weerarada noocaas oo kale looga hortago? in la sameeyo task force waxa loo yaqaano waa qayb ka mid ah dawladda oo la dagaalanto muslim naceebka iyo dadkan ma arkino maxaa la dhahaa in dadka muslimiin si gaar ah loo target gareynin iyo ma arkin iyo loo dabagalin xuquuqdoodana la ilaaliyo. marka Islamophobia task force wax loo yaqaano ayuu officekiisa ma arkin oo soo jeediyey. marka taasna waan anaga capitalka la tagi doonaa waan wadi doonaa arrinka ma arkin oo barnaamijkaas la xaqiijiyo. taasoo formation waxay qodobada kasoo baxay maanta kulanku ahaa Islamophobia task force waa group islaam naceebka iyo ma arkin oo maxaa la dhahaa in lagu xadgudbo dadka muslimiinta ah. tan labaad oo meesha kasoo baxday waxay ahayd in aan ka shaqeyno dadka muslimiinta masaajidadeena sidii loo ilaalin lahaa safetygooda. marka taasna waxaan ka sameynay guddiyo masaajidada ku wareegi doono qaban doono oo sidii ma arkino annaga haddaan nahay jaaliyadda muslimiinta Minnesota si aan ma arkino u ilaalino goobaheena cibaadada.
cabdullaahi dhacdadii New Zealand kadib dad badan oo Minnesota ku nool ayaa waxa ay ka baqayeen inay masaajidada aadaan sida ay sheegeen marka dadkaas maxaad kula talin lahayd dad badan ayaa na soo wacay habeenkaas weliba weekendiga dugsiyada sabtiga iyo xadda dugsiyada carruurta badanaa la geeyaa maalintaas xataa jumcaha dadkiiba imaanaya aad bay u welwelsanaayeen waxaan la xiriirnay maaragtay shariifka ayaa soo wacay oo isaga booliiskaan la xiriirnay qoladan maaragtay booliiska iyo sharifkii aad baan u wada shaqeynay si masaajidada horta hore maalinta Friday-ga si fiican loo ilaaliyo waxaan kaloo ka wada sidii maaragtay community-ga aan maxaa la dhahaa loogu sameyn lahaa ay u arki lahaayeen dad in la ilaalinayo tan kale dadka runtii waxaan u sheegaynay in cabsi inaynan cabsanin mar ilaahay subxaana watacaala qadartahaayo qofkii dhimanayana dee dhimashada lagama dhuuman karo laakiin waxaan u sheegaynay in ay imaadaan oo islaamnimada dadka u sharxaan oo dadka iyo meel walba ay maarkino islaamkooda muujiyaan masaajidadana in laga cabsano runtiina taasaan u sheegnay runtiina dadka si fiicana loo imaaday khudbadii jumcaha dugsiyadana waa runtii waa la tegaayay laakiin dadku way maarkino runtii aad bay u taxadarayaan hadda indhahooda iyo dhagahooda waa furay kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiqaadir faarax oo ka mid ah guddiga masaajidka daarul faaruuq ee gobolka Minnesota waxaana uu warameeyay wariyaha iyaga Faadumo Macalin Labukar waa tahay dhageystayaal weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka duhurnimo waxaadna kala socotaan laanta af Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba imikana waxaan aadaynaa dhanka iyo Zimbabwe dawladda Zimbabwe ayaa ku dhawaaqday xaalad oo ay uga jawaabayso duufaan xooggan oo dalkaasi ku dhufatay warbaahinta dawladda ee dalkaasi ayaa sheegtay in dad ka badan 30 qof ay ku dhinteen daadadka ay dhalisay duufaantaasi mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 70 qof oo kale wali lagu laayahay dalkaasi duufaanta Idai ayaa horay khasaaro weyn uga geysatay dalka Mozambique Ismaaciil Maxamed Jamac waa ganacsade Soomaali ah oo ku nool caasimadda dalka Zimbabwe ee Harare khadka telefoonka ayuu goordhaweydii ugu waramay duufaanadii Mozambique iyo Malawi saameeyay in gobolka Eastern Highlands la yiraahdo dadna waa ku geeriyoodeen iskuullaa ku baaba'ay guryo badan dadna waa ku dhinteen tuulooyin waxaa jira oo biriijyadii loo maraayo ay go-een oo inta iyadana dad ay ku saameysay aan la garan karin saaka iyo shalay ilaa milaa la dispatch gareeyey oo dadka caawiya ilaa haddana roobka waa socdaa magaalo Harare la yiraahdo oo caasimadda ah wuu soo gaaray roobka muddo 3 maalmood buu socday guud ahaan markaynu egno duufaantan iyo roobabka saameynta ugu weyn ee ay ku yeelatay guryo badan iyo iskuulo badan baa dumay caruuro iskuullada dhigta waa ku dhinteen tuulooyin aan weli dadna waa ku dhinteen guryahoodina waa baaba'een roobabkii baa qaaday wabiyaal badanna oo yaryarna way fataheen marka xoolo badanna dadka waa ka baaba'een marka dawladda military ayay u dirtay iyo booliis inay caawiyaan duufaantan iyo roobabkan faraha badan ma wax looga bartay baa waddankaasi waa markii labaad anigu intaan Zimbabwe 3 sanaan joogaa markii labaad tan oo kale dhacdo weeye tii ugu dambeysay El Niño ahayd marka usually marka uu duufaanadan iyo roobabkan aad u badan ay dhacaan xilli abaar la galo abaarta kadib ayaa duufaanan yaabood bay aad u dhibaataysay dadka marna abaar oo hadda galeydii badankooda beereen fasalkan galeyda la beeri jiray waa baaba'day roob la-aan haddana roob aan caadi ahayn baa khasaare kala keenay marka gaajo iyo guryahoodii iyo biyo ku fatahay ayaa ilaahay qadaray saameynta duufaanta ma waxay ku eg tahay waddanka Zimbabwe ba mise wadamada aad dariska tihiin wax baa gaaray waxay ka soo bilaabmeen horta saadaanta hawada ay sheegayso Madagascar baa ku xigtay Malawi baa ku xigtay Zimbabwe way soo gaadhay Zimbabwena ku dhamaaday marka laakiin roobabkii weli waa socdaan aradii dhacday baa weli rikoobaya dadkii go'doomay baa la caawinaya marka Zimbabwe ku egtaa khasaarada roobabka iyo duufaanada geysteen ugu dambeyntii marka xaaladda hadday sidan kusii socdo ay tahay cabsida ugu weyn waxa weeye wallahi cudurro inay bilaabmaan iyo sidii loo
lahaa dalka Zimbabwe aad ogtahay inay hoogaha dhaqaalaheedu uu iska maaragtay hadda liito sida loo caawin lahaa iyo bariisyadii buundooyinkii jabay wixii loo dhisi lahaa khasaare aad u tiro weyn ayaa meesha ka dhacday guddigooda dowladda u samaysay oo ay ka codsatay adduunweynaha in la caawiyo Red Cross oo kale iyo international organizations inay caawiyaan. maxamed jaamac oo ganacsado Soomaali ah oo ku nool caasimadda dalka Zimbabwe ee Harare ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay. haddii aan eego dhageystayaasha qodobkan Facebook garaygooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Shuka Aadam Gure oo jooga Bultaag waxa uu leeyahay duufaantu ku dhufatay Zimbabwe oo sababtay in dalkaasi lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah waan ka xumahay runtii waxa uu leeyahay mucjisooyinka rabbaaniga ah ee lagu samro ayna ka mid tahay duufaantu. maxamed caawil axmed oo isna jooga Qardho waxa uu leeyahay xaaladda Zimbabwe aad baan uga xumahay waxaana markaa ugu baaqi lahaa dadka inay dulqaad u yeeshaan waxaase rajaynaya in maalintaasi loo asteeyay musiibo qaran ay ku sii ilaato waqtigeedii. aad bay u mahadsan yihiin dhageystayaashaasi iyo kuwa kale ee raayigooda Facebook ka soo dhiibtay. iminkana dhageystayaal wararka ciyaaraha haddii aan eegno Manchester United xalay waa laga reebay ciyaaraha FA waana markii labaad oo xiriir ah ay kooxda soo gaartay guuldaro tan iyo bishii December ee sanadkii tagay xilligaas uu tababaraha ku meel gaarka ah ee Ole Gunnar Solskjaer uu booska kala wareegay tababarihii hore ee kooxda Jose Mourinho. Wolves ka hor axadiina soo dhaafnay waxa ay guuldaro kala kulmeen kooxda Arsenal kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. tababare Solskjaer waxa uu BBC-da u sheegay in qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen xalay uu ahaa midkii ugu liitay abid 2 gool iyo gool bay xalay ku baxeen kooxda Wolverhampton ay u gudbeen wareegga xiga. dhanka kale Manchester City iyaduna guul oo soo laabasho ay ka gaartay kooxda Swansea oo qaybtii hore ciyaarta hoggaanka haysay 2-0. Bernardo Silva Sergio Aguero ayaana markaasi ciyaartaasi ka dhigay 3-2. Man City-na waxay u soo baxday afardhamaadka FA Cup-ka ciyaaraha maanta dhici doona dhageystayaal. Fulham iyo Liverpool ayaa balansan Everton iyo Chelsea way ciyaari doonaan halka Millwall iyo Brighton ay dheeli doonaan. waa hagaag haatana ku soo dhawaada baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi kaga soo jeedinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasho Saciid Xasan. Caasho mahadsanid Samiira. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Aamin Sheekh Bakar oo jooga Yemen waxa uu baafinaya dadka kale ah Shaaric Sheekh Bakar Cadow Sheekh Bakar iyo Maana Sheekh Bakar dhammaan dadkaas waxa ugu dambeysay ayagoo ku sugan marka 1993 haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Aamin Sheekh Bakar ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Yemen ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 73535752. Faadumo Aadan Xuseen oo joogta Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Koos Cige Faarax iyo Caashakiin Cige Faarax waxa ugu dambeysay iyagoo ku sugan dalka Sweden sanadii 2002. haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Faadumo Aadan Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen ama telefoonka nambarkiisu yahay 9677761752. Khalid Ahmed Yusuf oo jooga Yemen waxa uu baafinaya dadka kale ah Umar Xasan Khayre, Maryan Maxamed Xaaji iyo dhammaan reer Umar Xasan Khayre waxa ugu dambeysay ayagoo ku sugan dalka Netherland 2009. haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Khalid Ahmed Yusuf ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Yemen. Cabdi Faarax Cabdi oo jooga Yemen waxa uu baafaa Seyraar Guuleed Ducaali, Maxamed Ismaaciil Cabdi, Xerey Ismaaciil Cabdi iyo Mulki Ismaaciil Cabdi dhammaan dadkaasi waxa ugu dambeysay iyagoo ku sugan Muqdisho sanadii 1991. haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdi Faarax Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen ama telefoonka nambarkiisu yahay 9677706966. Marwa Cabdulqaadir Xasan oo joogta Yemen waxay baafinaysaa Ibrahim Cabdulqaadir Xasan waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Sweden 2011. haddaba haddii uu maqlayo Ibrahim Cabdulqaadir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Marwa Cabdulqaadir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Xaali Xasan Faarax oo joogta Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Canab Muuse Faarax iyo Caayisho Muuse Faarax waxa ugu dambeysay iyagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2013. haddaba haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Xaali Xasan Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Xamdi Maxamed Suufi oo joogto Yemen waxay baafinaysaa Ardo Maxamed Cumar
waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka 2010 haddaba haddii ayna maqlayso arda maxamed cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi maxamed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen booste maxamed maxamuud oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah maxamuud maxamed maxamuud iyo maryan maxamed maxamuud waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 1994 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo booste maxamed maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen saadiq cabdulqaadir saalax oo jooga yemen waxa uu baafinayaa axmed sacuud saalax shamso cabdulaahi xasan iyo dhammaan reer axmed sacuud saalax waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan sacuudiga 2015 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo saadiq cabdulqaadir saalax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen xuseen ibraahim muxiidiin oo jooga yemen waxa uu baafinayaa aamine ibraahim muxiidiin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Jarmalka sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso aamine ibraahim muxiidiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xuseen ibraahim muxiidiin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen ayuub maxamed daa'uud hilowle oo jooga yemen waxa uu baafinayaa maxamed cumar diini cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Soomaaliya 2013 haddaba haddii uu maqlayo ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ayuub maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen yuusuf cabdiraxmaan kiis oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cumar cabdiraxmaan kiis xasan cabdiraxmaan kiis iyo sahra cabdiraxmaan kiis waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan afgooye sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo yuusuf cabdiraxmaan kiis iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 73535752 qamar haaruun faarax oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah ismahaan haaruun faarax maxamed haaruun faarax iyo axmed haaruun faarax waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo qamar haaruun faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 73535752 axmed xuseen cilmi oo jooga yemen waxa uu baafinayaa maxamed xuseen cilmi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed xuseen cilmi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axmed xuseen cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen xuseen cumar mukhtaar oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cali cumar mukhtaar nuur cumar mukhtaar leylo cumar mukhtaar dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xuseen cumar mukhtaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen maana cali xuseen oo joogta yemen waxay baafinaysaa mandeeq cabdulqaadir xuseen waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso mandeeq cabdulqaadir xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maani cali xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen cabdiraxmaan aadan dalmar oo joogo yemen waxa uu baafinayaa cabdiwahaab aadan dalmar cabdulqaadir aadan dalmar iyo faadumo aadan dalmar waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 1996 haddaba haddii ayna maqlayaan ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdiraxmaan aadan dalmar ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen maxamed cumar cantiir oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah dhaqane cumar cantiir cabdulaahi cumar cantiir iyo haaruun cumar cantiir dhowr dambeysay iyagoo ku sugan afgooye sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo maxamed cumar cantiir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 73535752 xamzata baanow ciise oo joogta yemen waxay baafinaysaa shishaxley baanow ciise waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan marko 2006 haddaba haddii ayna maqlayso shishaxley baanow ciise ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamzata baanow ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen xaawo ismaaciil jaamac oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah saalax ismaaciil jaamac zaynab ismaaciil jaamac iyo caasho ismaaciil jaamac dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan jowhar sanadii 2005 haddaba
haddii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xaawo ismaaciil jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 735356 heybe maxamed muuse oo jooga yemen waxa uu baafinayaa aar maxamed muuse iyo maxamed jaamac ducaale suldaano maxamed xaaji waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan maraykanka 1992 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo heybe maxamed muuse iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 9677716 layla caydruus nuur oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah calow caydruus nuur guuleed caydruus nuur iyo aways caydruus nuur dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan gaalkacyo sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo layla caydruus nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 735356 isaaq ibraahim muuse oo jooga yemen waxa uu baafinayaa balqiisa isaaq ibraahim iyo aamino sheekh cali waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan gaalkacyo 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan balqiisa ibraahim iyo aamino sheekh cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo isaaq ibraahim muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 96777639 cabdilcasiis macalin dirir oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah axmed macalin dirir muuse macalin dirir siyaad macalin dirir iyo madiino macalin dirir dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan qoryooley sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdilcasiis macalin dirir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen yuusuf cali axmed oo jooga yemen waxa uu baafinayaa cabdulqaadir cali axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maraykanka 2007 haddaba haddii uuna maqlaya cabdulqaadir cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yuusuf cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen aways maxamuud caraale oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdulqaadir maxamed caraale liibaan maxamed caraale yaasiin maxamed caraale nuur maxamed caraale iyo amaal maxamed caraale dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan qoryooley sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aways maxamed caraale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen heybe maxamed muuse oo jooga yemen waxa uu baafinayaa deeqa maxamed muuse waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya 2009 haddaba haddii ayna maqlayso deeqa maxamed muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo heybe maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen farxiyo cabdi jamaal oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah raaxa cabdi jamaal haaruun cabdi jamaal mursal cabdi jamaal xasan cabdi jamaal iyo cumar cabdi jamaal dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Kismaayo sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo farxiyo cabdi jamaal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen maxamed axmed nuur oo jooga yemen waxa uu baafinayaa zaynab axmed nuur waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan suudaan 2009 haddaba haddii ayna maqlayso zaynab axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay aadan warsame ciise oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah shariif warsame ciise fuaad warsame ciise liibaan warsame ciise iyo kaltuumo warsame ciise dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aadan warsame ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen baafintana maanta waa naga intaa samiiro iyo caasho ay ku mahadsan yihiin barnaamijka baafinta dhegaystayaal intaasina waxaynu kusoo gabagabeynaynaa idaacadda duhurnimo oo uu maxamed cabdiraxmaan soo saaray waxaan idinla socodsiinaysaa anigoo ah kawthar maxamed cabdullaahi tan iyo kulankeena xiga nabadgelyo